kulan waxaana wanaagsan qaarta wada nagala socotaay meel walba joogtaan iyo si walba aad maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka hayno on halkan idinku soo gudbin doona hadii eeba yiraahdo qodobada warkeena ugu darroona waxaa kamid ah dagaal qadhaadh oo dib uga qarxay waqooyiga dalka Ethiopia TPLF oo sheegtay inay ka baxday xabad joojintii ay ku dhawaaqday maalin ka hor iyo wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Ethiopia iyo TPLF madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo loo magacaabay ergeyga nabadeynta iyo dhexdhexaadinta TPLF iyo dawladda federaalka Ethiopia qowmiyadda axmaaradana waxay sheegtay haddii TPLF wada hadal la furo inay dagaal ku qaadi doonaan xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay xisbiga Feeblantiisa dawlad deegaanka Soomaalida gudoomiye Ibrahim Dheere oo xilka laga qaaday wuxuuna isagu sheegay inuu fashiliyo shirqool loo dhigay haddaba shirqoolku muxuu yahay warkeena ayaad ku eegi doonaa waxaa kale tood warkeena ku maqli doontaan war ka soo baxay taliska guud ee ciidamada TPLF qodobadaas iyo kuwa kale faahfaasanayaan warkeena ku eegi doonaa waxaana istuulahay ugu sugan saaxiibkay Faahiye oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay dalka Ethiopia Faahiye Sudow waad mahadsantahay Santago haddii aynu ku bilowno TPLF waxay ku dhawaaqeen in ay ka baxeen xabad joojintii ay ku dhawaaqeen maalin ka hor iyo wada hadaladii dawladda federaalka iyo Tigreega u dhaxeeyay dhinaca kale duqeymo xoogan ayay ciidamada cirka ee dalka Ethiopia maanta ka fuliyeen caasimadda deegaanka Tigreega bal maxaa ugu dambeeyay xagees la kala maraya aad baad mahadsantahay Santago inta aynaan ku horeynin warka ka soo baxay TPLF iyo in ay xabad joojintii ay ku dhawaaqday shalay ay ka bixi doonto bal marka hore aan dulmar ku sameeyo xaaladii guud ee ugu dambeysay ee waqooyiga dalka Ethiopia maanta dagaalo goosgoos ayaa ka dhacay deegaanka Waqoohumara Walqayt iyo sidoo kale gobolka Raaya iyo deegaanka Wallo gaar ahaan agagaarka magaalada Qobo sida warbixino ee goosgoos oo na soo gaaray ay sheegayaan dhinaca kale TPLF maanta waxay soo bandhigtay kumanaan ka tirsan ciidamada militariga Ethiopia kuwaas oo ay ku qabteen dagaaladii u dambeeyay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamadaasi sidoo kale waxa la sheegayaa in ciidamadii militariga Ethiopia ku sugnaa deegaanka Waqoohumara uu soo kala dhaxgalay khilaaf xoogan kadib markii dawladda federaalka ay sheegtay in aagaasi ay iskaga soo baxaan sidoo kale warbixinada aan ka helayno ayaa sheegayo in ciidamada Eritreanka ay diideen inay bataatanba ka baxaan gobolada Amxaarada iyo sidoo kale dhulkii ay ka qabsadeen ee ku teedsanaa aagan Shire Shareero Adibayo iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan Salambasa intaasi waa xaaladda guud ee maanta ka dhacday gobolka Tigreega dhinaca kale magaalada Maqale caasimadda gobolka Tigreega maanta waxaa ka dhacay Santago duqeymo xoogan oo ay geysteen ciidamada militariga Ethiopia duqeymahaasi waxa loo adeegsaday diyaaradaha loo yaqaan drone-ka ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sidoo kale diyaaradahaasi waxay duqeeyeen jaamacadda magaalada Maqale qaybo kamida waxaana la soo bandhigay sawirada baabuur ay burburiyeen iyo sidoo kale guryo dabaqiyo ah oo qaraxyadaasi ay waxyeeleeyeen hal qof oo dhimasho ayaa meeshaasi ka dhacay sidoo kalena dhowr qof oo shacab ayaa ku dhaawacmay dhinaca kale diyaaraduhu maanta waxay beegsadeen xarunta telefishinka loo yaqaano Dhimsi Wayaane ee ku hadla codka afka Tigreega sidoo kalena ah TV-ga kaliya ay leedahay jamhaddan TPLF ee dagaalka kula jirta dawladda federaalka Ethiopia waana TV-ga uu aasay ama sameyntiisa uu lahaa madaxweynaha hadda Tigreega maamula ama xukuma loo yaqaano Debretsion Gabre Mikael TV-gaasi bataatan baxaruntiisa dhulka ayaa lala simay anteenooyinkii iyo sidoo kale qalabkii meesha yaala diyaaraduhu way burburiyeen cabaar ayuu hawada ka maqnaa balse waaxda maamulka ee TV-gaasi waxay shaaciyeen galabta niskii dambe in ay satellite-ka dib ugu soo noqdeen shaqadoodina ay si caadi u wadan doonaan intaasi marka laga soo tago duqeymahaasi afayeenka TPLF Getachew Reda maanta wuxuu ka hadlay duqeymaha ay geysteen diyaaradaha ciidamada militariga Ethiopia goobaha ay ka geysteen iyo sidoo kale dhibaatada ay u geysteen shacabka Tigreega waxa uu sheegay in arrintaasi ay dabada ka riixayso dawladda Eritrea oo iyadu u aragto wada hadal dhexmaro dawladda federaalka Ethiopia iyo TPLF in aysan wax faa'iido ugu jirin dhinaca kalena aysan waxa weeye wax qorshe ah aysan ugu jirin oo ay u aragto haddii TPLF iyo Ethiopia ay heshiiyaan in Eritreanku ay khatar ku yihiin dhinaca kale Santago duqeymahan waxay ku soo aadayaan xilli madaxweynaha xilli ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu ku maqan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si uu uga qayb galo xalfadii caleemasaarka ahayd ee maanta ka dhacday magaalada Nairobi ee lagu caleemasaarayay madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Samoei Ruto magaalada Nairobi ayuu saaka ka degay halkaana waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya kadibna wuxuu ka qayb galay xalfadaasi marka duqeymahan waxay ku soo aadayaan xilli ay wali waxa weeye ra'iisul wasaaraha waddanka uu ka maqan yahay dhinaca kale war ayaa ka soo baxay taliska guud ee ciidanka TPLF warkaasi waxa uu dhignaa
in xilli TPLF ay ku dhawaaqday wada hadal iyo in wada xaajood lagu soo gabagabeeyay xaaladda ka taagan waqooyiga dhinaca kalena nabadgelyo iyo nidaam waxa weeye isfaham lagu soo dabaalo colaadda halakaysay gobolkaasi in waxa weeye dowladda Ethiopia ay geysanayso duqeymo taa macnaheeduna ay tahay inay jawaab ka bixin doonaan ka talis ahaan ayna waxa weeye beegsan doonaan furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Ethiopia kuwa Eritrea waxa uu intaasi ku daray in dagaaladii maalmihii u dambeeyay socday in Dhidibet gaar ahaan dagaalkii ka socday in ay ku jabiyeen ciidanka militariga Ethiopia gaasi ku sugnaa dhinaca kalena waxay saad iyo qalab haysteen ay ka furteen xeryahoodina ay u dhaadhaceen waxa kale oo uu sheegay in maxaabiista ugu badnayd maanta la soo gaarsiiyay gobolka Tigreega dhinaca kalena ay sii wadi doonaan wax kasta oo lagu difaaci karo shacabka Tigreega ama laga hortagi doono waxa uu ku sheegay ama magac uu ku sheegay faashiistaha oo u dhigan xukuumadda federaalka Ethiopia in hadalkaasi uu ku socdo taliyahan maanta hadlay oo taadhasa lagu magacaabo waxa uu wacd ku maray shacabka Tigreegu inay jawaab degdeg ah ka bixin doonaan hadalka Aisha waxa weeye isku daygan fashilmay waa wax soo hadalka u dhigay dowladda Ethiopia iyo Eritrea isgarabsanayo ay maanta maqalo ku beegsadeen dhinaca kale waxa uu xusay xilli ciidamadoodu furimaha ay dagaal ka soo hoyinayaan dhinaca kalena ay ku baaqahayaan wada hadal in Ethiopia ay doonayso inay shacabka Tigreega baabi'iso dhanka kalena magaalada Maqale ay duqeymo ka geysato ninka la dhaho Santiago marka waxa uu sheegay in arrintaasi ay u diyaar garoobeen oo aysan joojin doonin howlgalkooda ka dhanka ah taliska Addis Ababa dhinaca kalena ay iska celin doonaan intaasi waxaan kugu darayaa Santiago 7 xisbi oo ka tirsan qoomiyadaha kala duwan ee dalka Ethiopia oo ay ka mid yihiin xisbiga loogu magacaabo danta Soomaalida oo ayaguna ay shawaadhaweyta lagaga dhawaaqay magaalada Nairobi iyo TPLF Gambeelaha iyo Qimaata Ago iyo xisbiyo kale oo dalka Ethiopia ka howlgala maanta war saxaafadeed bay soo saareen waxay sheegeen in xaaladda guud ee dalka Ethiopia iyo nidaamka xukuumadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in ay waxa weeye ka hortagi doonaan cudud ciidan iyo wax kasto ay awoodaanna ay ku burburin doonaan dhinaca kalena ay u taagan yihiin inay badbaadiyaan guud ahaanba xaaladda ka soo cusbaanaysa dalka Ethiopia arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli waxa weeye taliska guud ee TPLF iyo sidoo kale xubno ka tirsan xisbiyada mucaaradka Ethiopia maalmihii u dambeeyay ay ku sugnaayeen magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar dhinaca kalena ay soo baxaysay tuhuna in masaaridu ay hubayn doonto ayna saad fara badan oo military ay ku bixin doonto cid kasta oo Ethiopia ee ka soo horjeedo xisbiyadaasi waxay sheegeen in aad ugu xun yihiin sidoo kale duqeymaha ciidamada Ethiopia ay geysanayaan xasuuqa shacabka Tigreega lagu hayo iyo sidoo kale nidaamka xisbi ee uu ku shaqeynayo xisbiga ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed inta ayna qodobka xisbiga ka bixin guddiga doorashooyinka Ethiopia ninka la Santiago maanta war saxaafadeed iyaguna shalay soo saareen waxay sheegeen in shirweynihii u qabsoomay xisbiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed loo yaqaan PP ama Prosperity Party in nidaamkii xisbi ay qabsadeen ee hore uu ahaa mid fashil iyo sidoo kale khiyaano iyo wax isdaba marin ay hareeyeen dhinaca kalena uusan ahayn nidaamka xisbigaasi uu ku shaqeeyo mid sharci ah loona baahan yahay in dib loogu noqdo nidaamka shaqo ee xisbigaasi iyo sidoo kale qaabka uu howlgalayo arrintaasoo laftigeeda u muuqato in weji kale loo samaynayo xaaladda guud ee dalka Ethiopia waxaad sheegtay in Tigreegu ay sheegeen inay xabad joojinta ka baxayaan maalinka horena waxay ku dhawaaqeen xabad joojin hal dhinaca oo dawladdu aysan wax wara ka soo saarin dhinaca kale waxaad sheegtay in ciidamo soo bandhigeen oo ay ku qabteen furimaha hore ee dagaalka kana tirsan ciidamada militariga ee dalka Ethiopia halka dawladda federaalkana maanta ay page-kooda soo dhigay page-ka ciidamada la soo dhigay in ay ciidamo aad u tiro badan oo Tigre ah oo ka mid ah ciidamada Tigreega in iyagana ay gacanta ku dhigeen oo ay soo qabteen bal sheegashooyinka dhinacyadan iyo TPLF xabadan halka dhinaca xabad joojinta halka dhinaca ay ku dhawaaqeen ma la isdhihi karaa markii laga reebo baalxoftada iyo sidoo kale in ay ciidamo labada dhinacba ay soo bandhigayeen oo ay ku qabteen dagaalada xabad joojinta halka dhinaca Tigreegu ay ku dhawaaqeen waa lagu jabiyay furimaha hore dagaalka ma la dhihi karaa Santiago waxaan loo dhihi karin dowladda federaalka Ethiopia dhowr jeer oo hore ayay soo saartay baaq ku aadan xaaladda gobolka Tigreega iyo sidoo kale xaaladda sii xumaanaysa ee dalkaasi dowladda Ethiopia hore waxay u sheegtay in ay TPLF doonayso inay kula hadasho goob kasta iyo xilli kasta oo loo baahdo iyo sidoo kale waxa weeye qorshe kasta oo looga baahdo inay kala hadli doonto ayna la fadhiisan doonto warkaasi dowladda Ethiopia dhowr jeer hore ayuu ka soo baxay sidoo kale dowladda Ethiopia marar badan ayay ku celisay xaaladda sii xumaanaysa gobolka Tigreega iyo waxa ka socday inaysan marnaba raalli ka noqonayn dhinaca kalena aysan soo dhaweynayn intaasi waxa dheer Santiago
Ethiopia intay ku dhawaaqaysa xabad joojinta dhinaca TPLF wax wara lagama haynin laakiin aamusnaantan dowladda federaalka Ethiopia ay samaysay laftigeedu question mark ayay abuuraysaa iyo laftigeeduna waxa soo baxaya TPLF laftigoodu in goobihii iyo furimihii hore dagaalka ku jirtay gaar ahaan deegaanada Shire Shareero iyo sidoo kale Adibayo Salambasa iyo goobahaas in lagu jabiyay ciidankoodina lagu baabiyay dhulna laga qabsaday taana kulay one of the factors ka sababay in ay waxa weeye xabad joojinta ku dhawaaqaan yay ka mid noqon kartaa oo lama dhayelsan karo xaqiiqatan waana wax sheeg macquul ah oo su'aal la isweydiin karo weeye marka xagga kale laga fiiriyo dhinaca kale marka aad fiiriso Tigreegu qaabka naflacaarinimada ah dagaalka ay u galeen iyo sidoo kale goobaha ay qabsadeen iyo furimaha isku ballaadhiyeen markaad fiirisana lama dhihi karo way ku jabeen dagaalka bal waxa la dhihi karaa xaaladaha soo wajahday mid kamida bay kamid ahayd sidoo kale waxaan ognahay in dowladda Mareykanku oo ka cabsi qabto isballaadhinta Shiinaha iyo Ruushka oo isku ballaadhinayo geeska Afrika iyo sidoo kale guud ahaan qaaradan aynu ku noolahay Afrika in uu doonayo in uu waxa weeye ka dhex galo oo Ethiopia aysan saameyn ku yeelan oo dhinaca kale arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa qayb bay ka tahay marka dabariix Mareykanku uu sameeynayo oo labada dhinac ee Ethiopia iyo TPLF lagu sameeynayo oo og tahay in wada hadalkan uu ku soo aaday xilli xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan Mareykanka uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia dhinaca kalena wada hadallo ay ka furmaayeen dalka Djibouti inuu ku soo aadayo marka wada hadalladan dhex maray laba dhinac ama laba waji ayay yeelan karaan oo mar ah in TPLF ay liciiftay marna ah in dowladda Ethiopia ay liciiftay marna in Mareykanku dabada ka riixayo marna in labadooduba colaada ay ku khasaareen marna ah in Tigreegu dhaqaale ahaan iyo sidoo kale jiritaan ahaan ay baaba'san yihiin hadda ay doonayaan inay nabadgeliyo ay qaataan dhinaca kale ay nafalcaari yihiin wagaag qowmiyadda axmaarada waxay sheegeen in wada hadal TPLF haddii ay dowladda federaalka la gasho iyaga ay dagaal ku qaadi doonaan taliska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed bal maxay tahay qowmiyaddan oo kamida qowmiyadaha dalka Ethiopia hanjabaada ay dowladda dhexe u dirayaan Santiago aad baad u mahadsan tahay qowmiyadda amxarada gaar ahaan xisbiga loo yaqaan Nama ama Amhara Movement xisbiga loo yaqaano maanta war saxaafadeed ayuu soo saaray war saxaafadeedkaasi waxaa lagu faafiyey guud ahaanba warbaahinta deegaanka amxarada waxay sheegeen in ay ka digahayaan wada hadal xilligan lala sameeyo TPLF iyo in xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay xilligan TPLF hoos fadhiisato dhinaca kalena ay bataatanba wax wada hadal la gasho waxa kale oo ay sheegeen TPLF in aysan daacad ka ahayn xabad joojinta ay ku dhawaaqeen sidoo kalena ay u arkaan fursad siyaasadeed iyo sidoo kale chance ay ku doonayaan inay dib isku soo abaabulaan dhaqaale ay ku helaan shidaal ay ku helaan macaawinada iyo gargaarka uu soo gaadho diblomaasiyintooda inay waxa weeye dib ugu soo noqdaan ciidamadan dalka Suudaan ka jooga inay deegaankooda dib u soo galaan kadib xilli maanta ay ka awood badan yihiin kana dhaqaale badan yihiin waxa weeye gargaar iyo raashin iyo wax walba ay heleen in ay doonayaan TPLF inay dib dagaal u soo qaado waxa kale oo ay sheegeen in haddii waxa weeye sheeg fursad la siiyo dowladahan iyo sidoo kale shisheeyaha doonaya inuu TPLF gacan saar la yeesho inay fursad u heli doonaan oo diyaaradahan qaramada midoobay iyo midowga Afrika ka digi doona maqale in ay hub iyo dhaqaalaba geyn doonaan taa bedelkeedana ay qabsan doonaan magaalada Addis Ababa waxay kaloo sheegeen in TPLF maanta ay daciif tahay loona baahan yahay fursadda la haysto in lagaga faa'iideysto oo bataatanba la burburiyo oo chance la siinin waxay intaas ku dareen in TPLF meel laga soo noqon karo aysan maanta joogin loo baahan yahay ciidamada Ethiopia in maqala ay dib u galaan marka bataatanba waxay walaac ka muujiyeen wada hadallada TPLF loo furahayo xabad joojinta ay ku dhawaaqeen iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ayay walaac ka muujiyeen waxayna sheegeen haddii arrintaas ay dhacdo in amxaarada iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay iska hor imaan karaan dhinaca kale shacabka amxaaradu aysan marnaba soo dhaweyn karin arrintan Santiago waxay dabada ku haysaa ama dabada ka riixayo goboladan Walqayd Humara iyo Raaya ee la isku hayo colaadda xudunta colaadda Ethiopia ahba la dhihi karo oo axmaaradu aysan doonin inay ka baxdo dhinaca kalena TPLF in deegaanada gacanta loo geliyo mooyaane aysan marnaba yeelaynin inay wax wada hadal la gasho dowladda federaalka Ethiopia ayaa dabada ka riixay waxa kale oo dabada ka riixay cabsi ay ka qabaan in qowmiyadaha qiimaad iyo ago iyo sidoo kale muslimiinta wallo oo TPLF ay gacan saar la sameysay dhinaca kalena jamhada ay ka dhex abuurtay saameyn ay ku dhex leedahay in haddii wada hadal la galo wada hadalkaas ay qayb ka noqon doonaan deegaanka amxaaradan uu noqon doono mid kala qaybsamo oo waxa weeye uu burbur iyo fashil ku yimaado waxa kale oo amxaaradu ay ka cabsi qabtaa in
dalkan suudaan weerarkan uu kaga soo haya dhinacan xuduudda alfashaqa in ay isku soo ballaadhiyaan oo dhinaca isku soo riixaan kadibna TPLF ay xagga kale kaga dhufato waxaa kaloo amxaarada la dhihi karaa oo dabada ka riixayo siyaas afaweerkii oo heshiis wada lahaayeen dhinaca kalena qayb ka ah dagaalkan lana sheegayo inay iskaga dhow yihiin ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo amxaarada marka la fiiriyo inuu xagga amxaarada u shanjeero maadaama Tigreega ka soo horjeedaan ama dagaal ay kula jiraan in uu isagu dabada ka riixayo ay doonayo inay qorshooda halka ka fushadaan dambayti faahiyow xisbiga FED ee dowlad deegaanka Soomaalida khilaaf xooggan ayaa soo kala dhaxgalay gudoomiyihii xilka ayaa laga qaaday gudoomiyuhu wuxuu sheegay in kooxdani ka qaaday ama mas'uuliyiintan isaga xilka ka qaaday uu fashiliyay arin la yaab leh oo isaga shirqoolo isaga ay u dhigeen dhinaca kaleeto dalka Kenya maanta waxa ka jira cali masaarkii madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Samoei Ruto oo maanta la cali masaarayay wuxuuna magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo uu u soo magacaabay ergeyga nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalka Ethiopia bal adoo noo soo koobaya xaaladahaasi maxaa xilligan ku soo beegay madaxweynaha hadda loo soo madaxweynihii hore ee dalka Kenya oo loo soo magacaabay ergeyga nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalka Ethiopia santago aad baad u mahadsan tahay dhinaca Uhuru Kenyatta ku horeyna maanta madaxweynaha xilka ka degay Uhuru Kenyatta waxaa magacaabay madaxweynaha xilka la wareegay William Samoei Ruto waxa uu magacaabay ergeyga dib u heshiisiinta dowladda Ethiopia oo ah TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kale gobolka Geeska magacaabistaasi sidaad ogtahayba waxaa socotay doorashada Kenya ka hor waan ahayd in TPLF ay dhexdhexaadisa dowladda Kenya dhinaca kalena khilaafka xooggan ee Ethiopia ka taagan ay dowladda Kenya dhexdhexaadiso waxaad ogeyd in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu booqday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia isagoo gaarsiiyay halkaasi dhambaal ama fariin ka timid dowladda Mareykanka oo lagu doonayay in xaaladda qalafsan ee sida maalinlaha uga taagan gobolka Tigreega in lagu soo afjaro marka magacaabistani waxay daba socotaa waantii la doonayay in xaaladda guud ee dalka Ethiopia lagu soo afjaro dhinaca kalena xiriirka dowladda Kenya iyo Ethiopia dib loogu soo celiyo TPLF-na la isku dayo space ay ku wada hadli karaan waxaad ogeyd in magaalada Nairobi ama madaxweynahan hadda Kenya iyo kii ka horeeyayba in ay wada hadalsiiyeen ururka ONLF xilligii ay dagaalka ku jireen oo magaalada Nairobi wada hadal dhowra sanadii 2010 in ay ka furmeen marka maadaama Kenya ama Nairobi ay tahay xarunta diblomaasiyadda Geeska Afrika magacaabistan cusub ee madaxweyne Uhuru Kenyatta waxay ka dhigan tahay in ay keeni doonto xaalad ay ku wada hadli karaan labada dhinac ee isku haya dagaalka Ethiopia markaan u leexano dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida xisbiga FEB ama loo yaqaano xurriyadda iyo sinaanta ay gudoomiyaha ka Ibrahim Dheere maanta waxa uu soo qoray qoraal uu ku sheegay in shirqool loo maleegay oo uu maleegay mid ka mid ah hogaaminta xisbigaasi gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka in ay fashiliyeen dhinaca wax faahfaahin intaasi dheer kama uusan bixinin qaabka ay u fashiliyeen iyo sida ay wax u dhaceen intaasi markay soo baxday saacado kadib xisbigaasi golihiisa dhexe iyo guddigiisa fulinta oo iyagu sheegay inay shir yeesheen waxay sheegeen inay xilki ka qaadeen Ibrahim Dheere waxyaabaha ay isticmaaleen ama qodobada ay soo bandhigeen ay ku sheegeen inay xilki ka qaadeen waxa kamid ahaa inuu sameeyay khiyaano qaran inuu dalka dibadiisa ku qabtay shirar waxa weeye aan waafaqsanayn nidaamka ama tasdiisha dastuurka u dejisan dalka Ethiopia in uu ku xadgudbay arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia iyo sidoo kale nidaamka xisbiyada Ethiopia u yaalo in uu dantiisa shakhsiga ee ka dhex fushaday xisbigaasi in uu diiday inuu qabto xisbigaasi inuu isla xisaabtamo iyo sidoo kale inuu ka hor imaaday in shirarkii golaha dhexe iyo guddida fulinta xisbigaasi ay bataata ma qabsomaan qodobadaas oo dhan markay ku eedeeyeen kadibna waxay sheegeen in ay kalsoonidiina ka qaadeen xilkiina ay ka xayuubiyeen Ibrahim Dheere dhinaciisana ilaa iyo hadda wax war kama soo bixin laakiin tuhun iyo sidoo kale xogaan helayn ayaa sheegayo in arrintaasi ay salka ku hayso in xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida oo horey u kala qaybisay ururka ONLF inay haddana kala qaybinayso xisbigan xurriyadda iyo sinaanta ee uu hogaaminayo Ibrahim Dheere dhinaca kalena ay dhaqaale badan ku bixinayso waxaan arrintaasi tuhunka keenay kadib markii bogogga warbaahinta dowladda federaalka Ethiopia dowladda deegaanka Soomaalida ay leedahay markii lagu soo daabacay Santago aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibka daacad oo la socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia daawadayaal idinka waad mahadsantiin wararkeena xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tagaynaa amaan Allah